عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أقيارت شرفت لما الكستا الدنيا ذا كجوكتان kusoo dhawaada youtube janaalka sirta quruxda oo walaashin Zainab maanta waxaan halka inoogu hayaa sida aad idiin muuqato face mask kaasoo runtii in badan idinka dhameyn doona dhibaatooyinka wajiga ku dhaca face mask wuxuu u fiican yahay wajiga finanka leh wajiga haaraha leh wajiga qalqalan waana anti aging oo wajiga wuxuu ka dhigaa young beautiful ayuu ka dhigaa dadka aging ka problem haysta oo kale ama aging ku soo bilowday in iskaga hortagaan way teeda kale qofka markuu gabadhu 25 sano soo dhaafto waxa fiican inay isugu dadaasho waxyaabaha anti aging ka ah si mataqaana quruxdeeda kor ugu qaado mar walbana wajigeeda cimri degdeg uu soo gelin maxaa yeelay 25 waxay ka dambeeyo collagen production ka maqaarka qofka gabdhaha ama dumarka collagen production ka hoos ayuu dhacaa bini'aadanka oo dhan boqolkiiba 25 marka hore hoos u dhacaa kadibna halkaas uu ka sii wadaa ilaa marba marka si dambeys hoos buu dhacayaa si aad marka collagen-taada aad u boost gareysid oo aging iskaga ilaalisid maqaarkaaga inuu degdeg soo galo waa inaad isticmaashaa waxyaabaha anti aging ka walaaleyga markaad isticmaashaan insha Allah maaskan waxaad arki doontaan idinkoo isjeclaaday midabkiina qurux noqday liisho noqday dhibaatooyinka maqaarka ku dhaco dhan insha Allah idinka baabaaday inta kadib waxaan u soo gudagaleynaa maaskayna sidaan u sameeysanay sida aragtaan halkan waxaa inooga muuqdaa turmeric waxa waaye huruudi oo qoyan huruud oo qoyan aad bay u fiican tahay hadaad haysto iyadoo qalalan no problem halkan waxaa ka aragtaan liindhanaanta 4 meel markii loo qeybay jab kamid ah jabkaasaan soo dhaqay soo nadiifiyay soo jaray maca qolofteeda muhiim waa qolofta aad ayay u tahay muhiim maxaa yeelay wajiga waxay ka dhigi doontaa way furi doontaa midabka wayna ka nadiifin doontaa dhibaatooyinka ku dhaca sida haaraha finanka iyo qalqaleelka faraha badan waxa soo dhan malabka waan isticmaalanaa sidoo kale caanaha zabaadiga iyo coconut oil ayaan isticmaalaynaa sida aad halka ka aragtaan caanaha zabaadiga iyo malabka waxay aad muhiim ugu yihiin anti aging-ka iyo saliidda coconut-kaba runtii maxaa la jiray saddexdaasba wajiga waxay siiyaan qoyaan qalqaleelka faraha badan way ka qaadaan aging-kana way ka ilaaliyaan sidoo kale huruudda waxay ka qaadaa aging-ka iyo dhibaatooyinka kale oo dhan haaraha iyo wixii lamid ah marka hore waa soo shiideena ruudi iyo liindhanaanta ayaan marka hore isku soo shiideena labadaas kaliya isku soo shiideena markay noqoto wax jilicsan oo yacni sida mataqaana sidaas oo kale noqoto burbursan ayaan waxaan sameynaynaa insha Allahna waxyaabihii kale ku darsanaynaa caanaha zabaadiga ku darsanaynaa iyo malabka iyo saliidda qumbaha intaas ayaan ku daraynaa kadibna waa isku walaaqeynaa oo markaas ka bacdi isdhex gelinaynaa insha Allah markaas isdhex gelinayna waan marsan doona isticmaali doona walaaleyga qaaliga meel kasta dunida ka joogtaan maxaa la dhihi jiray waa kana malabkaan ku darsanayna malabkana waxaa ku darsanaysaan hal qaando caanaha zabaadigana adigu 2 qaando ama hal qaandi bar insha Allah bidnillaahi kariim saliidda oo coconut oil-kana iyadan waxaan kaga darsan doonaa wax yar oo adiga qaando aan aad u buuxin oo kale insha Allah ama qaando barkeeda marabna inaan iskaga badino wax yar ayaan ugu filan maadaama uu yahay waxa aan sameynayo wax yar oo adigu aan badnayn oo insha Allah marka sida ula socda waa door bari waa isticmaal kartaan fridge-ka gashan kartaan hadaan doontaana yacni hal mar ayaad wajigiina ma tiraahday sur ma tiraahday gacmo ma tiraahday kulli aad marsan kartaan qalaas ka bacdina ma sha Allah intuu idinku qalalay ayaa sugi doontaan markuu idinku engagana quruxdiina iyo dhadhalaalkiina iyo naacimkiina nacnaciina ayaad u ekaan doontaan runtii iga soo ogaada arintan iyada ah waa wax runtii cajiib ah anigana aan ka helay sidaad igu taqaanaan mar walba waxaan jeclahay wax allaala wixii nafteeda wanaajiyo inaa idinkana idinla soo wadaago si aad uga faa'iidaysataan walaalahayga qaaliga ah marka hore markaad marsanaysid waxaa lagaa rabaa inaad marka hore haddii aad make-up marsan tahay make-upka aad iska soo nadiifisid sida aad aragto markaad iska soo nadiifisid wajiga markaas ka bacda soo dhaqdid wajiga markaas soo dhaqdo wajigaaga nadiif ah oo clear ah oo waxba lahayn markaas kadib aad insha Allah biidnillaahi kariim walaasheeda qaaliga aad isticmaashid marsatid macnaha maaskaaga xilliga adiga aad munaasibka ku ah hadda doonto habeenkii waad marsan kartaa intaad seexan ka hor hadda doonto duhurkii ama galabta xilliga aad firaaqo u heshid sidaad aragto maaska saas oo marsanaysaa kadibna waa iska dhaqay markuu kugu qalalo oo kugu soo engego
markaasna waxaad isticmaalaysaa kareem alla kareemkii aad haysatid oo habeenkii aad marsatid ama aad ku seexatid ayaad marsanaysaa si yaroo degan oo maasha allah ah الله ولا لقى قالي مركز إسكسر رقدان وجهنا واحد أركض أنت إن شاء الله وجهنا صافت نقضي شاين النقضي إسلام مركين محل يجي أذيك نفتر كذا مركز مرايد إسكو في رسالة وجهه قصاص وتعتبتت ناعم كذا ما شاء الله دلال كذا إفتين كذا الله دعوته ما حي الألعاب تاني يروح وحي كقاعدة مقار كده السكينك مقار أنت أي كقاعدة إسلام مركينا هارها أو كلمة مذوق فينك واحد أنا ترتيب أي قصة باب إسا مقار كان ما حي كتام شاين إنه عادي ما هو أنت إيجن إسكو قد دالة يعني لا يسكن أوجا mar walba insha Allah ku dadaalo waxyaabaha home remedies ka ama natural ka dabiiciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiiyay oo ay mataqaana gurigeena dhexdiisa ama jikada dhexdiisa ka heli kartid waxaan insha Allah soo kordhin doonaa barnaamijyo lamida barnaamijyadaas oo kale tahay face mask iyo face cream ka oo waxyaabaha dabiiciga oo guriga dhexdiisa ku sameeysan karno saa dhamaanteen gabdhaha meel walba dunida ay joogaan uga faa'iideystaan maxaa yeelay wax ka fiican mal waxyaabaha dabiiciga ah wax ka wanaagsan ma laha ama ka qiimo badan ama ka micnihi isla markiiba result aad ku helaysaa micnihi dad muddo isticmaashid waad helaysaa wajigaaga waa dareemaysaa quruxdiisa iska ilaaliya kareemada chemicalka ku badan yahay oo runtii wajiga dila qalqaleelka faraha badan iyo haaraha iyo madmadowga iyo finankaba u keena iska ilaaliya fadlan walaaliga qaali meel kasta dunida ka joogtaan maqaarkiina ku faana ku qanacsanaada qanacaad waxay ka timaadaa qalbiga إن قفل بنا إلهي مقارك سيو قروح بدني ما شاء الله صومالها تانا هنا مقارك أدون قروح بدن ما كلر قروح بدن أيان هاي السنة ومنهن مدو زائدة منهن عدان وحنا دد مدب كود وكافيه هاي أم وهاي سيدا ملب كلاتا مدب مارين أو قروح بدن أو إلهي وحنسيه أو ناجرال مدب كينو كفان أبايو قالي ملك استأدوني ذك جوكتان مرة بنكود دالة سيدا متقانا مدب كينو قروحن هذين ونواجين هذين سي دبيعي أو واحد يكون رباطة أما عاف ما درو كينين هادو نفتينا متقانا حتى كيميكada nadii gudaha u sii dhaadhacdo kansar iyo cudurro xun baa laga qaadaa marar badan waa idinkaga soo waran walaaliga qaaliga Ameer kasta dunida joogtaan quruxda ma aha cadaanta sida ay dadka badan aaminsan yihiin cadaantu ma aha quruxda Ilaahay dadka u dhaliya quruxdana qalbiga ka timaada iyo kalsoonida iyo qofku inuu ku qanacsan waxa uu yahay insha Allah biinillaahi kariim walaaliga qaaliga hada video ka heshaan subscribe commentiga hoos igu soo qora dad nagu cusubtiin subscribe ka soo saara welcome ayna ku soo dhawaada reerka ma familka ku soo biira sirta quruxda dadka dhammaan hore ila joogan aad baa ugu mahadsantiin commentiyadiina quruxda badan iyo amaantiina iyo baraarujintiina waxaan idin leeyahay commentiga hoos igu soo qor idinkana waxaad jeceshiin like tahay laawnina insha Allah sidoo kale share la wadaaga asxaabtiina meel kasta dunida ka joogan inta aad baad ugu mahadsantihiin dhamaantiin waxaan idin leeyahay inta video lamid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa khayr iyo baraka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh